dhismaha masaajidka Baytul Maqdis ama Al-Aqsa iyo geerida Nabi Suleymaan calayhi salaam. Masjidul Aqsa markiisii u horeysay waxaa dhagax dhigay Nabi Yacquub calayhi salaam, kadibna waxaa dhisay Nabi Daa'uud calayhi salaam. isagoo dhammaystirin ayuu ka geeriyooday. wuxuu u dardaarmay wiilkiisa Suleymaan calayhi salaam in uu dhammaystiro dhismaha Masjidul Aqsa. Nabi Suleymaan calayhi salaam wuxuu ku i'tikaafi jiray oo ku tukan jiray mixraabka Masjidul Aqsa. markii uu yimaado mixraabka ayuu maalin walba wuxuu heli jiray geed ka soo baxay meeshaas. markaasuu la hadli jiray geedka, wuxuu ku oran jiray maxaa lagu abuuray oo lagu soo saaray. markaasuu geedkaasi intuu hadlo wuxuu oran jiray ama waxaa la ii abuuray in miro la iga dhigto oo la ii cuno, ama waxaa la ii abuuray in daawo la iga dhigto. kadibna wuxuu u qorshayn jiray waxa geedkaasi uu u soo baxay. maalin maalmaha ka mid ah ayuu wuxuu yimid mixraabka si uu ugu cibaadaysto. markaasuu wuxuu arkay geed ka soo baxay. markaasuu wuxuu weydiiyey geedka magaciisa. wuxuu ku yidhi, magacaygu waa kharuuba ama midka wax kharaabiya. maxaa lagu soo saaray buu yidhi. waxaa la ii soo saaray buu yidhi gurigan ama Baytul Maqdis in aan baabi'iyo oo aan kharaabiyo. markaasuu dareemay Nabi Suleymaan calayhi salaam in geeridiisii ay soo dhowdahay. geedkiibu intuu meeshii ka soo jaray ayuu derbi kale ku beeray. markaasuu Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ka baryey in haddii uu geeriyoodo inta aan la dhammaystirin Masjidul Aqsa, in uu ka qariyo jinka geeridiisa ilaa ay dhammaystirayaan dhismaha masaajidka Al-Aqsa. Nabi Suleymaan calayhi salaam isagoo ushiisa cuskan oo ku tukanaya oo ku cibaadaysanaya mixraabka Masjidul Aqsa geeriyooday. muddo 1 sano ah ayuu saa ahaa, ilaa markii dambe aboorku uu ushiisa cunay oo kadibna dhulka uu ku dhacay. markaas ayaa jinkii iyo dadkii oo dhan waxay ogaadeen in Nabi Suleymaan calayhi salaam uu geeriyooday oo muddo 1 sano ah uu mootanaa. halkaas sano oo Nabi Suleymaan calayhi salaam uu mootanaana jinku ma aysan ogeyn oo waxay wadeen shaqadoodii iyo leybarkoodii iyo dhismihii Masjidul Aqsa. haddii ay ogaan lahaayeen, maadaama uu Nabi Suleymaan calayhi salaam ahaa qofka keliya oo gacanta ku haya, faraha ayay ka bixi lahaayeen oo hawshaasoo dhan halkaas ayay kaga tegi lahaayeen. Nabi Suleymaan calayhi salaam wuxuu noolaa muddo 55 sano ah. boqortooyadiisuna waxay jirtay 20 sano.